بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. ولا ليال درسينا دينيغا waxa uu ku saabsan yahay al-ikhlaas fi al-amal wa tahdhir min ar-riya. amalka la sameeynaayo oo ilaahay daacadiisa si ikhlaas leh oo dar alla leh oo dar Allah in loo qabto iyo in la isaga digaayo in amalkaas loo sameeyo istustus hal lagu arko iyo hal lagu maqlo ayaa darsigeenan uu ku saabsan yahay. arintaas ayaanu ku soo qaadanaynaa aayadaha quraanka oo kitaabka Ilaahay oo kariimka ahadiisa rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam arintaas wixii nabigeena kaleey salaatu wasalaam uu ka yiri si markaas ay noogu noqoto faa'iido weyn ay noogu noqoto oo amalka aynu sameeynayno dar Ilaahay aanu ugu sameeyno wixii dar Ilaahay ka baxsan aanu iska ilaalino maadaama arintaas ay ku sugan tahay khasaare ay ku sugan tahay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala suuratul kahfi aakhirkeeda wuxuu yiri: faman kaana yarjuu liqaa'a rabbih faly'amal 'amalan saalihan wa laa yushrik bi'ibadati rabbih ahada. qofkii doonaya ayuu dhahay Allah subhanahu wa ta'ala, ama se qofkii rajaynaya ama ka baqaaya rabbigiisa maalinta qiyaamo inuu la kulmaayo oo adduunyada marka uu ka tago qiyaamo in la keeno bacsiga la soo baxsho la xisaabayo oo wax allaala wixii adduunyadan uu ku sameeyay lagu xisaabayo. qofkii arintaas ka baqaayo rajaynaya faly'amal 'amalan saalihan ayuu dhahay Ilaahay. amal saalixa ha sameeyo oo wanaagsan oo Ilaahay agtiisa laga jecel yahay. walaa yushrik bi'ibadati rabbih ahada. rabbigiisa cibaadada uu caabudayane yowsan cid kaleentood la wadaajinin cibaadada oosan ula qaybinine si maaratay ikhlaas ah rabbigiisa ha u caabudo ayuu dhahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala. aayadaas marka Ilaahay wuxuu noogu cadeynayaa qofka Ilaahay ka baqaaya inuu yahay qofka amal wanaagsan oo ikhlaas la sameeynaya inuu yahay. qofkan alla ka baqaynin oo maalinta qiyaamo in la xisaabo aan ka baqaynin oon arintaas ku talagelaynin inuu amalkiisa uu u sameeynayo riya iyo sumca uu u sameeynayo oo san dar Ilaahay aysan ka ahaynin. amalka hadii riya iyo sumca loo sameeyane wax laga helaya ma jirto oo aan khasaare ahayn iyo cadaab in lagu galo. maxaa yeelay wixii Ilaahay daraadiisa loo sameeya ha yaraadaana ha sabadnaadaane ayaa laga aqbalayaa. amarka marka la aqbalayo waa marka uu amal Ilaahay loo khalisaayo uu yahay oo dar Ilaahay loo sameeyo. shardi ma ahan inuu amal fara badan uu yahay. culimada islaamka oo ahlu cilmiga waxay yiraahdeen shayga amal oo la aqbalo sidiisaba wax yar ma noqday yiraahdeen. shayga Ilaahay hadduu ka aqbalo kugu yaraan maayo. aqbalkana waxaa la doonayaa inaad ikhlaas samayso oo amalka aad sameynayso dar Ilaahay aad u samayso. haddii marka hadda waxa weeye xagga ahadiis aynu soo qaadano waxaanu soo qaadanaynaa xadiis laga wariyay saxaabiga jaliilka oo la yiraahdo Jundub ibn Junaadata. waana xadiisu shaykhayn Bukhari iyo Muslim xadiis ay wariyeen. Tirmidina asaguna maaratay uu sunankiisa uu ku wariyay. waxaa Jundub rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu ka wariyay nabigeenu inuu yiri kaleey salaatu wasalaam
man samaca samaca allaahu bihi waman yuraa'i yuraa'i allaahu bihi. waxau dhaha rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam, qofkii camalka u sameeya ha lagu maqlo ilaahay maalinta qiyaamo ayuu ru'uusul khalaa'iq khalqiga oo isu yimiday agtooda ayuu ku falleexaynayaa. marka man samaca saas weeye, qofkii markaasi camal u sameeya ha lagaa maqlo oo markaasi ha lagu sheego samaca allaahu bihi ou dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. macnaha waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dadka ayuu maalinta qiyaamo hortooda ku falleexaynaa. ilaan camalkii dar ilaahay uma samayno, wuxuu u sameeyey dadkaanu ha ku sheegaano oo waxa weeye meel walba ha lagaa sheego oo waxa weeye waa nin cibaado badan ha lagu yidhaahdo, waa nin cilmi badan ha lagu yidhaahdo, wax kastoo wanaaga ha lagaa sheego oo markaasi sumcaddaas aad yeelatid ayuu isdhahay. markuu sidaas isdhaho, khalaa'iqdii maalinta qiyaamo maxsharka laysugu soo aruuriyey oo maalin aad iyo aad u dhibaato badan ay tahay, hortooda ayaa ilaahay ku falleexaynayaa. camalkiisii oon laga aqbalin asagoo maaragtay li ahaaneeyo oo cadaab sidaas ku gala ayaa imaanaysa. marka ha lagu maqla wixii loo samaynaayo shirki bay noqonaysaa. marka haddee shirkiguna waa shay aad iyo aad u xumoo in layska ilaaliyo loo baahan yahay. waxaa kaloo dhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaybta kale oo xadiiska, waman yuraa'i yuraa'i allaahu bihi, qofkii markaasi dadka camalkiisa u muujiya asagoo markaasi waxa weeye ha lagu arka isdhahaaya. dad waxaa jira markay dadku arkaayaan camal wanaagsan sameeya, daahirkooda qurxiya, markii dadku aysan arkayna wax kastoo xumaana sameeya. taasi waxa weeye khasaarada ugu xun weeye. waa qofaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ku kalsoonayn, oon in wax laga aqbalo iyo mid kale aan kala jeclayn, keliyana doonaya markaasi bani aadamku inay xurmeeyaan raba oo camalkaas markii lagu arko in la yidhaahdo waa nin wanaagsan oo aad iyo aad u wanaagsanoo camalkiisaanu aragna dhahaaya. qofka sidaas macnaha waxaa weeye xadiiskan, waman yudhir linnaasi camalahu yushahirhu llaahu fi lqiyaamati, qofkii camalkiisa dadka u muujiya. la muujintu laakiin waxaa weeye riyaa'an weeye, istususu ula jeedaa. laakiin adiga camal haddaa samaynayso sidii masalanba salaaddii masaajidkaad ku dukanaysaa, dadku way ku arkaayaan. waxa weeye waxaad samaynaysaa sakaad bixinaysaa, dadku way ku arkaayaan. haddana waxa weeye xaj baad gudanaysaa, dadku way ku arkaayaan. shardi waxaa ah in waxa weeye adiga camalkaasu dar ilaahay uu ka ahaado. arkidda markaasi dadku ku arkaayaan waxba shardiga ma ah. waxaa la rabaa markaas inaad maaragtay adigu waxaagu dar alle ay kaa ahaadaan. hadday dar alle kaa yihiin wax dhibaata oo markaasi ay leeyihiin ma jirto. marka waxaa la rabaa in si wanaagsan camalkaaga oo ikhlaas le inaad u samaysidaa lagaaga baahan yahay. markaasuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, waman yuraa'i yuraa'i allaahu bihi, qofkii camalka istusus u sameeya ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waa shuhraynayaa maalinta qiyaamo oo waxa weeye dadka hortooda ayaa lagu falleexaynaa isagane. marka waxaa la rabaa sumcadii in la yska ilaaliyo, in la yska ilaaliyo markaasi istususka iyo shuhradii la yska ilaalisho. waxaan aad ku shuhrowdid oo aad wax ku noqotid wax faa'iida oo ay leedahay ma jirto. marka waxaa la rabaa camalkeenna dar ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inaanu u samayno ayaa loo baahan yahay. xadiiska marka saan horuu sheegnaba waxaa wariyey bukhaarina waa wariyey, muslimna waa wariyey, tirmidina waa wariyey. waxaa kaloonu soo qaadanaynaa xadiis laga wariyey saxaabiga jaliilka oo la yidhahdo abu hurayra. waxau dhahay, qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama, qaala allaahu tabaaraka wa tacaalaa, ilaahay wuxuu dhahay xadiisulqudsi, anaa aqna shurakaa'i can ishirki, man camila camalan ashraka fiihi macii gayrii taragtuhu wa shirkahu ayuu dhahay. xadiiskan xadiisulqudsiya weeye. waxau dhahay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam, ilaahay wuxuu yidhi, anigu dadka shirkada ah oo waxu ay ka dhexeeyaan, waxay wax ka dhexeeyaan anigu qaniyaanka ah. ilaa ilaahay waa tou dhahay subxaanahu wa tacaalaa, ina allaaha la qaniyun cani alcaalamiin. ilaahay subxaanahu wa tacaalaa caalamiinta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waa ka deeqtoomaa. oo marka waxa weeye
qof ilaahay u baahan yahay ma jirto subxaanahu wa tacaala. marka macnaha waxaa laga wadaa anaa aqna shurakaa'i can ishirki yow dhah, waxa shirkada ah shirkigooda anigu qaniyaanka ah, inaan wax ku darsada ma doonaayo. man camila camalan ashraka fiihi macii gayri taraktuhu wa shirkahu. wax makhluuq loola wadaajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ogola. cibaadadu waxay doonaysaa ikhlaas bay doonaysaa. anaa aqna shurakaa'i can shirki yow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala. macnaha laa xaajata lii fii cibaadatin cumilad lii maca gayrii weeye. wax dana oo aan ka leeha ma jirto cibaado oo waxa weeye aniga la sameeyey, aniga iyo qayrkayna naloo wada sameeyey. oo qofkaan wuxuu isleeyahay asagoo markaasi hadda cibaadadiiba ay tahay alla wax loo sameeya kaliya, ayuu wuxuu hadda wax ugaga raadinayaa oo sumcad uga hel uu isleeyahay ilaahay qayrkiisa. camalka sidaas ilaahay aqbali maayo subxaanahu wa tacaala, wuxuuna noqonayaa nawcun min ashirki weeye. marka camalka sidaas oo adigana dhibaatada ku gelinaya ilaahayna uusan kaa aqbalaynin inaad iska ilaalisaa loo baahan yahay. qof kasta oo muslima waxa uu qabanayo dar ilaahay inuu u sameeyaa loo baahan yahay. waxaas waxa weeye wax yar oo maaragtay suuratul ikhlaas waa suurad ahaan way yar tahay, laakiin ilaahay agtiisa waa ku weyn tahay. haddaad hal suuratul ikhlaas akhriso iyo haddaad qur-aanka oo dhan akhriso ood markaasi isla markaasi qiradaada qurxan ha la dhegaysto, waxa weeye ha lagu maqlo, ha lagaa sheekeeyo, xaafid weeye ha lagu yidhaahdo, qaari weeye ha lagu dhaho, haddaad u akhriso waxaa markaasi kaa khayr badan hal qof oo suuratul ikhlaas hal ikhlaas akhriyey. ilaahay isaga iyo inay is og yihiinoo dar alle u akhriyey. marka waxaa la rabaa in la iska ilaaliyo waxyaabaha acmaasha burinaaya oo camalka uu ku buraayo. waxaa ka mid a marka sida hadda aanu soo qaadannay sumcadaas iyo ru'yadaas ayaa ka mid ah. waxay noqonayaanne shirkiga qayb ka mid ayay noqonayaan. xadiiskaas waxaa wariyey imaam muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey. xadiis kaleo waxaanu soo qaadanaynaa saxaabiga jaliilka Abu Hurayra laga wariyey. waxau dhahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inna awala nnaasi yuqlaa yowma alqiyaamati calayhi rajulun istushhida fa utiya bihi facarafahu nicamahu facarafahaa qaala famaa camilta fiiha qaala qaataltu fiika xata istushhidtu qaala kadabta walaakinaka qaatalta lian yuqaala jarii'un waqad qiila suma amara bihi faxusuxiba calaa wajhi xataa ulqiya fi nnaari. xadiiskan ayaan markaasaan waxaa weeye ku soo khatimi doonaa darsigeennan, waana xadiis dheer. marka xadiiskan wuxuu tusinayaa wax badan oo markaasi waxa weeye adduunkan bani aadamka ka dhacaaya oo khatarna lagu gelaayo. hadday dadki dad culamaa yihiin, dad mujaahidiin hadday yihiin, dad xoolale hadday yihiin, wax walba waxa weeye haddaynan ikhlaas aysan ahaynin in maalinta qiyaamo lagu fadleexoobaayo. waa u dhaha rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam qofka ugu horeeya oo la xugminaaya maalinta qiyaamo oo waxa weeye qallaha ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ku dureeraya 3 qaybood weeye. 3daas qaybood waxaa ugu horeeya u dhaha rasuulku rajulun istushhida, nin laga shahiid yeelay oo waxa weeye ku shahiiday macrakatul kufaar, gaalada markaasi jihaadka lala jihaadaayo, goobta gaalada lagula dagaalamaayo ayuu ku shahiiday. oo halkaas ayaa markaasa macrakadaasoo ku shahiiday, maata fil jihaadiyaa laga wadaa, jihaad ayuu ku dhintay. fa utiya bihi, ninkaas ayaa la keenayaa oo waxa weeye ilaahay hortiisaa la soo joojinayaa maalinta qiyaamo. facarafahu nicamahu, ilaahay wuxuu gargaransiinayaa oo ku tirtirsiinayaa nicmooyinkii ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada ugu nicmeeyey ayaa lagu tirtirsiinayaa. oo waxaa leeyahy nicmadaas ma garanaysaa, taas ma garanaysaa, taas haa howleeye. facarafahaa dabeedna nicmooyinkou garanayaa oo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu nicmeeyey ayuu ictiraafayaa oo markaasi ou oggolaanayaa. qaala markaas alla wuxuu leeyahay famaa camilta fiiha, maxaad ku camal fashay oo waxaa laga wadaa aniga may u shukrisay nicmadaasaan ku siiye mase iguma shukrin. famaa camilta fiiha, nicmadaas maxaad ku camal fasho camalka aad ku samaysay ilaahay ma ku shukrisay mase waa ku sidee haa leeyahy.
markaasuu wuxuu leeyahay hadda waa jihaadkii nicmo weyn weeye qof laga shahiid yeelay wuxuu leeyahay markaasi qaataltu fiika ilaahow daraadda ayaan u dagaalamay qaataltu fii sabiilika wa marlaatika bani aadanka waxaad ogaanaysaa sida hadda maanta adduunyada oo uu murmaayo oo wax u sheeganayo uusan ahaynin inuu maalinta qiyaameen ilaahay lasoo hor istaagayo laakiin meeshaas dood iyo cid markaasi cid ka yeelaysaa ma jirto laa takhtasimuu ladaya waqad qadamtu ilaykum bilwaciidi imaanaysa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala anugu waxa weeye waan idinsoo hormariyey waciidkii maaragtay adduunyadan wax idinkuu sheega dood meeshaan lagama ogola dooddu meesha waa xirmaysaa marka meeshaan laysla doodaa laysmurmaayo maaha markaasuu wuxuu leeyahay ilaahu daraadda ayaan u dagaalamay ilaa aan shahiid ka noqdo alla markaas wuxuu leeyahay de ilaahay wax lagama qari karee kadabta been baad ku sheegtu ilaahay leeyahy walaakinaka hase yeeshee qaatalta lian yuqaala jarii'un waad dagaalantay si laguu dhaho jarii' weeye waa ninkaa nin geesiya weeye allayna ninkaasu nin geesiya u ahay oo dadka markaasi magac adugu hesho saasaad dagaalamaysa faqad qiila waana lagu dhahayaa laleeyahy jihaadkaaga ilaahay daraaddiisa ulama jeedin warkaasaad ku doonaysay adduunyadana waa lagaaga sheekeeyey suma amara bihi ilaahay markaasna wuxuu amrayaa malaa'igta inay wejiga dhulka uu jiido fa suxiba calaa wejhi wejiga ayaa markaasaa dhulka loogu jiidayaa ihaano daraaddeed waa la soo qabanayaa markaasaa waxa weeye lugaha ina laga qabto ayaa wejiga dhulka loogu jiidaya inta naarta looga sii tuuraayo xataa ulqiya fi naari udha rasuulku inta naarta looga tuuraayo dadka hortiisa ayaa lagu jiidayaa waa la ihaanaysanayaa waxaas maxaa u keenay waxa uu khilaafay amarkii ilaahay cibaadadii ilaahay la raba inuu daraaddiis u sameeyo ayuu ilaahay qayrkiis la wadaajiyey waxaa ka dhacaya ihaanadaasaa ka dhacaysa qofkaan dar alla wax u samaynin maalinta qiyaamo ayuu fadleexoobayaa naarta ayaa lagu tuuraa rasuulku calayhi salatu wasalaam kaas waa ninka koobaad ninka labaad wa rajulun tacallama alcilma wa callamahu wa qara'a alqur'aana fa uutiya bihi facarafahu nicamahu facarafahaa qaala famaa camilta fiiha qaala tacallamtu alcilma wa callamtuhu wa qara'tu fiika alqur'aana qaala kadabta walaakinaka tacallamta alcilma liyuqaala caalimun wa qara'ta alqur'aana liyuqaala huwa qaari'un faqad qiila waxau dhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninka kale waxa weeye nin cilmigii bartay culummadii baa lagu soo jeedaa nin cilmigii bartay ee dadka baray oo asagii cilmiguu bartay dadkina kitaabadii wuu akhrinayaa qur-aankii ayuu akhrinayaa oo waxa weeye qur-aankii waa bartay ciyaalkii buu qur-aankii baraya dadkii buu qur-aankii baraya sidii macallimiinta oo kale waa la keenayaa isagana maalinta qiyaama maxsharka ilaahayaa nicmooyinkiisa gargaransiinaya markaasuu aqoonsanayaa nicmadii wuu ictiraafayaa ilaahay markaas wuxuu leeyay famaa camilta fiiha maxaad ku camal fashay maxaad u samaysay camalka ma dar allaad u samaysay mase waa ku sidee aal leey markaasuu wuxuu leeyahay tacallamtu alcilma wa callamtuhu ilaahu cilmigii waan bartay dadkii waan baray wa qara'tu fiika alqur'aana qur-aanka daradda ayaan u akhriyey saas ayuu leeyahy markaasuu ilaahay wuxuu leeyahy kadabta been baad ku sheegtay walaakinaka hase yeeshee tacallamta alcilma cilmiga waa baratay liyuqaala caalimun si laguu dhaho alla ninkaanu caalim weeye wa qara'ta alqur'aana liyuqaala huwa qaari'un qur-aanka waad akhrisa si lagu yidhaha waa nin qaariya waana lagu dhahay naartaa la farayaa markaas malaa'igtaa la farayaa dhulkaa lagu jiidayaa wejigiisa xataa ulqiya fi naari midka saddexaad waxaa weeye rajulun wasaca allaahu calayhi ilaahay nimuu u waasiciye xoolaha ilaahay wuxuu siiyey asnaafulmaal maalka noocyaashiisa oo ayaa la siiyey xoolo kasta nooc kastaa la siiyey fa utiya bihisna waa la keenayaa fa carafahu nicamahu ilaahay nicmayooyinkiisau gargaransiinaya waa tii la macnaheedii markaasuu garanayaa ilaahay markaas wuxuu leeyahy maxaad ku camal fashay markaasuu wuxuu leeyahay maa taraktu min sabiilin ilaahow wadda kama tegin oo aad jeceshiid in wax lagu bixiyo ilaa anfaqtu fiiha waan ku bixiye laka daraadda ayaa meel walba wax ugu bixshow leeyahy ma ilaahay baa la siri karaa markaas waa la leeyahay kadabta waad been sheegtay walaakinaka hase yeeshee facalta waa fashay liyuqaala in lagu yidhaahdo huwa jawaadun alla yidhaha ninkaanu diiqsiya weeye waa nin waxbixis badan sakhi weeye faqad qiila waana lagu dhahay suma amara bihi ilaahay waa amraa in la soo qabto fa suxiba calaa wejhi wejiga ayaa dhulka loogu jiidayaa suma ulqiya fi naari naartaa lagu tuurayaa marka khasaare ka weyn maa jirta ninkii jihaadka gale saasuu u khasaaray ninkii waxaa weeye
cilmigii bartay oo dadkii baro quraankii bartay oo dadkii baray saasoo u khasaaray ninkii xoolaha lay saasoo u khasaaray maxaa khasaariyay ikhlaas la'aanta khasaaris marka waxaan isu dardaarmaynaa camalkeena inaanu ikhlaas ku sameeyno oo waxaanu qabanayno dar ilaahay inay naga ahaadaan marka ilaahay wixii dar alla loo sameeyaa la helaya wixii kalantoodna waxba lagu dheefi maayo dad badan ayaa arrintaas dhibaato ku haysa waa in laga digtoonaada arrintaasoo qofku waa inuu ikhlaas sameeyaa shirkiga in la iska daayo marka darsigeeni diiniga ahay oo ku saabsanay al-ikhlaasu fil amal wa tahdhiru min ar-riyaa intaas ayuu noogu egyahay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد